بسم الله الرحمن الرحيم waxaan mahadnaq iskale ilaahay maanta halka isku keenay waxaanu joognaa suuqa idaacada oo masiibo xoog la ka dhacday labadii bisha habeenkii saddexdii bisha maanta waxaanu joognaa lixdii bisha waxaanu halkan maanta isku nimi gudideedii suuqa loo xil saaray maalintii hawsha dhacday qasaarihii bartan ka dhacay waxaanu jecel lahay inaanu dadweynaha la wadaagno wixii xoog aanu ka hayno ilaa maalintii qasaaro dhacay oo ahayd saddexdii bisha iyo maanta aynu joogno lixdii bisha laba saddex qodob baan ku soo warinaya qodob mahadnaqa qodobna waa qodobkii xogtii aanu suuqa ka helay aanu ka ururinay qodobna waa ciddii aan la wadaagnay weeye qodobka koowaad mahadnaqa haddana horreysiiyo waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan isku keenay mar labaadkana waxaan u mahadnaqayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiin mar saddexaadkana waxaan u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska waxaan mar labaadka isna mahadnaqa raacinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo subaxii masiibadu halkan ka dhacday yimi isaguna suu dadkiisa ugu kurgalo khasaaraha ka dhacay dabka ka dhacay suuqa idaacada maalintii hawshan dhacday guddiba hore u lahaa guddidii suuqana hore u lahaa iyo guddi kaloo farsamo oo suuqa laga kaabay waxay isla qaateen in hawshii suuqa loo kurgalo khasaarihii ka dhacay guddidii suuqa hawshii xogtii ururintay iyo barnaamijkii ay soo dhammaystireen iyo xog ururintii suuqa khasaarihii ka dhacay labay u kala saareen mid waxa weeye khasaarihii maacuun tahay waxyaabihii dadku ku ganacsanayeen dhex yaallay waxna waa hantidii ma guurtadahayd xogtii aanu dowladda hoose la wadaagnay iyo ciddii ay qusaysay waxay noqotay xog hordhaca ama natiijo hordhaca natiijadii hordhac ahayd waxaanu ku soo ururnay maxaa dadkan ka gubtay maxaa u dhex yaallay tusaale ahaan oo kale adigoo hebel maxaa u dhex yaallay meherdiisa itemkiisu nooc muu ahaa maxaa kaga baxay cabirka dhulka ku fadhiyay imisuu ahaa qaab noocaasaan u dhignay marka si aanay dadkeenu inta badan marka masiibooyinka noocan u dhacaan inta badan qofba meeshuu jeceliyay buu la kacaa marka waxaanu walbala wixii si cilmaysan in loo gudagalaa yar wanaagsan marka waxaanu soo qaadanay keliyata qorshihii koowaad oo ah wixii hanti kaga basbeelay meesha aanay hantidii ma guurtadeeda aanay ku jirin marka maanta ay bishu tahay lixdii bisha maalin khamiisa waxaanu la wadaagnay guddidii farsamada ahaa ee dowladda hoose ee maayar ku-xigeenka hogaaminayay iyo barsaabka gobolka waxaanu maanta la wadaagnay xogtaasoo natiijo hordhaca ahayd natiijadii hordhaca ahayd kolle waxba faahfaahin mayno wixii aan la wadaagnay laakiin labadaa qodob baynu kala saarnay hantidii ma guurtadahayd iyo wixii dadka kaga basbeelay dadku iibinayana ganacsigoodu ahaa markaa jawaabta xukuumaddan ka war sugaynaa iyo dowladda hoose hadday noqotay hadday dowladda dhexe noqotaba waxaan kaloo aad iyo aad u boorinayaa inkastoo maalintii hore layidhi wax lagu dhawaaqay guddidii heer qaran laakiin waxaan rajaynayaa sida naloo sheegay in riboodkaygan maanta la sugayey oo maanta waxaan u filayaa in madaxweyne maanta ku dhawaaqi doono guddidii heer qaran markaa jawaabta waxaynu ka sugaynaa anu shacabka doonaa inaan la wadaagno jawaabta waxaynu ka war sugaynaa ciddii aynu xogtaa la wadaagnay insha allah wixii intaa ka dambeeyana waynu wada joogana hadduu ilaha idhaahdo waxaan mahadnaqa marka koowaad oon ilaaway aan aad u xoojinayaa ganacsadaha weyn maxamed siciid geedi oo maalintii koowaad khasaarahan halkan ka dhacayba ka soo jawaabay dhibaatadii halkan ka dhacday waxaan kaloo ku boorin lahaa ganacsadayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka kale muxsiniinta ilaahay waxsiiyeyba dhibaatadii halkan ka dhacday sida ganacsadaha weyn maxamed siciid geedi in iyaguna ku daydaan dadkan waa dadkiinii idinka idiin baahan yihiin dadkani shalay toole dadkii la martiyey bay ahaayeen maantana iyagii baa marti idinka baahan markaa hadalkayga waxaan ku soo ururin lahaa intaas baan ku soo ururin lahaa aad iyo aad nabad mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين maanta maalin khamiisa guddida suuqa idaacada waxay ka soo baxeen shirkii ugu dambeeyay la yeeshaan guddida farsamada dowladda hoose maalintii waxa weeyaan dhibaatadii dhacday lagu dhawaaqay dadka waxaan ugu bushaareynaa qodobada ugu muhiimsan ay tahay inay ogaadaan bulshada suuqan ku qanacsan jirtay in guddidu ay waqti fara badan ay geliyeen in qof walba xogtiisa iyo wixii dhibaato ku dhacday loo qoro loona hubiyo loona saxo wixii hanti halka kaga gubatay loo saxo waxaan dadka suuqa ku shaqaysta hantidan iyo musiibadan ay ku dhacday aan ugu bushaareynaa in suuqan aan isla afkaranay sawirka muuqda ee qaran iyo bulsho ahaan baanu doonay guddi ahaan aanu ka rabno dowladda iyo cid kastaba in suuqanu noqdo suuq la tartama suuqii waaheen
maanta dib loo habeeyey taasi maaha macnaheedu inuu rabno inuu suuqa noqdo suuq daba jiitama waqti fara badan dadka ka xidhnaada waa suuq ka duwan suuqyadii hore oo dad danyar ay ku shaqaysan jireen dad waxaway garabrootay ay ku shaqaysan jireen u baahan in si degdega looga jawaabo si qurux badan oo nabadgelyo leh oo qurux iyo farshaxanimo badanna ay ka muuqato suuqaasi uu noqdo oo halkii hore iyo meel dhowtana aan lagu celiyo meel ka sarreysa lagu celiyo sida ugu dhaqsaha badan lana suuqa loo soo celiyo noloshiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii iyo quruxdiisiba taasina waa baaq aanu gudbinayno dadkana waxaan ugu bushaaraynaynaa inaanu suuqaynu noqonayn suuqii hore uu noqon doono mid ka qurux badan aad uga qurux badan haddii la yidhaahdo qodobka saddexaad waxay guddidu si gaara ugu mahadcelinaysaa ganacsatadii faraha badneed ee la xidhiidh kale la sameeyey ee heer qaran hadday tahay waxaanu si gaara anagu ugu mahadcelinaynaa ninka la yidhaahdo maxamed siciid oo markiiba jawaab degdega oo dareen la ka soo celiyey dhibaatadii musiibada halka ka dhacday qodobka afraad ee guddidu ay adkaynaysaa waxa weeya in dadku ay ku bushaaraystaan in xogtaasi ay gaadhay guddidii qaranka oo maanta guddidu ay jawaab degdega soo bixin doonto haddii la yidhaahdo oo xogta lala soo wadaagi doono dhammaan waxa weeyaan guddida hawsha inoo xil saaran qodobka shanaad waxaan guddida ay mar walba ku celinaysaa oo ay ku celinaysaa in xogta aanu gudbinno ay noqoto xog mar walbaba la hubo oo aanu ku dadaalayno qof walba inaanu xaqiiqdiisa u gaadhno xogta wixii naga dhiman ee naga maqan mar walbaba guddidu waxay diyaar u tahay oo 24 saacadood habeenkii ay u taagan yihiin inay xogtaa gaadhsiiyaan meel kasta oo waxa weeyaan ay gaari karto si aynu u helno waxa weeyaan guul suuqan u soo hoyata waxaan ugu dambayn u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka oo maalintii koowaad ku dhawaaqay inay musiibadan tahay musiibo qaran waxaanu ugu mahadcelinaynaa inuu dareenkaa markiiba ka jawaabay waxaanu rajaynayaa xogtaasi markay maanta gaadho madaxweynaha inuu guddidiisii heer qaran uu si degdega insha allah nooga soo jawaabo waxaanu si xooggan uga jawaabaynaa oo si xooggan ugu mahadcelinaynaa dowladda hoose oo intaa aanu joognay si weyn noola shaqaynaysay oo waxa weeyaan aad noola dadaashay dhammaantiin waad mahadsantihiin wixii aan ka tegana insha allah waxaa ka jawaabi doona haddii la yidhaahdo guddoomiyaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi guddidaydii hore hadalka dhammaysay anigu in yarumaan ku darayaa waxaan ku darayaa niyow halkaa dee dad danyara oo aad u jilicsan ayaa jira markaa inkasta oo aanu guddidii farsamo ee heer deegaan aanu la kulannay aanu iyagana ka soo ballan qaadnay inay si degdega wax ula soo gaadhayaan dadka haddana waxaan ku darayaa insha allahu cid kasta oo ka qayb qaadan karta dadkaa waxqabadkooga in aad ka soo qayb qaadataan oo dadkaa waxa ay u baahan yihiin lala soo gaadho dee intaas uban ku soo ururinayaa maadaama oo aan waxa weeyaan dee hadalkuna iska kooban yahay anaguna mahadcelin uun ay tahay hawshii kale raggaasaa dhammeeyey anugu waxaan leeyahuun ilaahay qof wal oo meeshaa wax ku soo darsadaba meesha uu ka soo saaro ilaahay meel wanaagsan ha u geeyo halkan waxaan ahay dumarka halkan suuqan fadhiyey ee masaakiinta ahaa ee danyarta ahaa ee nimcadii ilaahay keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qanacsan aaminsanna nimcadii alla nagu riday waxaanu u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala 100 goor iyo 1,000 goor ilaahay baanu u mahadnaqaynaa waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa dawladda iyada sharafta badan maxaafid iyo macaaradba ee halkan noogu yimid ee nagu soo booqday ee kaga jawaabay dhibtii ilaahay keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo halkan ka keenay raalli baanu ka nahay anigoo ku hadlaaya haweenweynaha ilaa cadda oo dadka ay masiibadu haleeshayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu leenahay ilaahay baanu raalli kaga nahay ilaahay baanu ku faraxsannahay ilaahay baa wax noo qabanaya iyo dawladayada maxaafid iyo macaaradba waanu hambaliyeynaynaa waanu ku aaminsannahay
sharafta iyo qiimadda ay nagu soo booqdeen ayaannu halkan ugu faraxsannahay walaalayaal ama hooyooyin waxaannu idin leenahay dadkan waa danyar bay haayeen anigoo ku hadlaaya ururka halkan haweenweynaha suuqan joogay rag iyo dumarba waxaannu leenahay arrintaas sida ugu dhaqsaha badan leh dadka masaakiinta ah ee masiibadu haleeshay ee masiibadana raalli aanu ka nahay in loogu dadaalo oo wixii loo qaban karo loo qabto oo dhaqso ah ayaannu rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal halkan waxaan ka salaamayaa horta dhammaan dadkan xafladda dadkan ka soo qayb galay hawshan maanta masiibadan meeshan ka dhacday walaal maanta waxa weeyaan hawshan in badan maabaati dhacday maalin saddexaadii bay dhacday bisha saddexdeedii bay dhacday intaana hawshan waanu ku jirnay imikana calaa kulli xaal hawshan waanu bindhay maanta waxaan u wadayaa dowladdii hoose waxaanu halkan walaal uga hambaliyeynaynaa maanta aad mahadnaq weyn waan uga jeedinaynaa ganacsadaha Siciid Awgeedi Siciid Maxamed Siciid Awgeedi oo ka soo jawaabay hawshii ka dhacday meeshan masiibadii ka dhacday dhaqsa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa dadka kalena ee maanta muxsiniinta ah inay walaal dhaqso ugu soo jawaabaan dadka masaakiinta ah ee danyarta ah ee hooyooyinka u badan ee maanta masiibadaasi ay haleeshay waxaase walaal maanta dowladda ilaa madaxweynuhu maalintii halkan uu yimid wuxuu markiiba masiibo qaran buu ku sheegay waxaanu ka dhacay markiiba guddi qaran baa la magacaabi doonaa guddidiina insha Allah waa lagu jiraa talagalkeedii marka waxaan leenahay insha Allah dadkaas si dhaqso ah loogu soo gargaaro si dhaqso ah ilaahay baa horta gargaar haya si dhaqso ah loogu soo gargaaro insha Allah